bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal rabadaan wanaagsan meel walba oo aad joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa barta aynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid a xildhibaano laga qaadaya xasaanad iyo xogta sirta laga helay mas-uul ka tirsan maamulka Somaliland oo xalay lagu dilay magaalada Laascaanood iyo koonfur galbeed oo shaacisay qabashada doorashada kursigii lagu celiyay qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadeena ugu xiranaw idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like naan gudi reglisaan gambalaalka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle saaxiibayaal sidoo hordhaca warkayga baad ku daawateen hadaynu ku bilowno xildhibaano ayaa laga qaadayaa xasaanada sababta xilka looga qaadaya ayaana noqotay in laga helay sir badan taasoo la xiriidha in ay baarlamaanka u joogaan dowlada shisheeye sida Kenya iyo Imaaraadka Carabta ila xogogaal ah u waramay Runsheeg TV ayaa tilmaamay in dhawaan la rajeynayo in xasaanada laga qaado xildhibaano dhowr ah kuwaasoo aysan magacyadooda nala wadaagin arrimo jira awadood waxayna tilmaameen in sababta xilka looga qaadaya ay tahay in ay wadanka u joogaan in ay u adeegaan wadamo shisheeye sida Kenya iyo Imaaraadka waxaa sidoo kale mas-uulkana la hadlay oo tilmaamay in raggaasi faylashooda loo gudbiyay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo ka hor inta aan xasaanada laga qaadin xildhibaanadan ayaa tiradooda lagu qiyaasay ilaa 10 kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar sidoo kalena caan ka ah bulshada Soomaaliyeed warar soo baxaya ayaa tilmaamaya in xildhibaanadani lagu ogaaday afarin qolaaleed ay la wadaageen wadamadaasi shisheeye kalfadhigii ugu dambeeyay xildhibaanadan ayaa xasaanadooda waayi doona maadaama ay gudbiyeen xog sir ah u leeyahay qaranka taasoo muujinaysa mas'uuliyad darrada qaar ka mid ah xildhibaanadeena kuwaasoo aan ugu matali karin in ay kalfadhiga amaba baarlamaanka kusii dhex jiraan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu amray inay baaritaan dheeri ah weliba sida ugu dhaqsiyaha badan ah ay jawaab uga soo bixiso raggaasi caadaysay inay siraha iyo xogta dalkeena la wadaagaan wadamada shisheeye sidoo kale wararka aan ka helayno xasaanada laga qaadaya xildhibaanada ayaa tilmaamaya in kolkii horeba ay lacaga malaayiin dollar kaga soo qaateen wadamadaasi si ay qayb uga noqdaan xildhibaanada cusub ee dalka iyagoo magacdil ku sameynaya xildhibaanadeena iyo sidoo kale dowladnimadeena dal kasta ee jira waxyaabo waxaa jira la ilaaliyo iyadoo ay qayb ka tahay siraha dalka iyo xogaha qarsoodida ah iyo sidoo kale arrimaha gudaha iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda balse siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen olole ay ku magacdilayaan xildhibaanada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda maadaama aysan mas'uuliyiinta iyo dadka xasaanada inoo haya aysan isku mid ahayn balse waxaa soo badanayay xildhibaano saraakiil iyo sidoo kale shakhsiyaad kale kuwa oo magaca kore in kala mid ah balse wadamo kale u adeegaya sida Kenya iyo Imaaraadka waxaa la filayaa in dhawaan xasaanada laga qaado xildhibaanadaasi kadib markii ay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xog dhameystiran oo faahfaahsan ay la soo wadaagto mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka kooxdan xildhibaanada ah ee u adeegaya wadamada shisheeye ayaa waxa ay rabaan in ay fowdo ka dhex bilaabaan baarlamaanka si kalfadhiyada baarlamaanka uu leeyahay buuq iyo dagaal iyo rabsho ay uga dhex bilaabato siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa badankood waxa kaliya oo ay xilka u doontaan ay tahay inay dhaqaale ka sameeyaan iyaga oo xogta iyo siraha dalkeena ku iibsanaya lacago si ay lacagtaasi iyagu isugu dayaan inay ka manaafacaadsadaan balse culaysyo badan oo kaga yimid madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale saraakiisha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ugu horeeyo taliyaha dabagalka ayaa waxa ay kaliftay in la helo meesajada iyo fariimaha ay la wadaageen
wadamada ay u shaqeeyaan, taasoo khasabtay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka lagu amro in ay baaritaan degdeg ah ku sameysa raggaasi si xasaanadooda looga qaado looguna keeno sida ugu dhaqsiyaha badan ciddii bedeli lahayd. doorashada dadban ayaa culayska ugu badan ee ay leedahay waxaa ka mid ah in dad aan la aqoon in ay kusoo biiraan xildhibaanada qaranka, taasoo dhalisa in ay xogaha iyo siraha dalkeena la wadaagaan wadamada ay u shaqeynayaan. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah mas-uul ka tirsan maamulka Somaliland ayaa xalay lagu dilay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. waxaa xalay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool lagu dilay isuduwihii qandaraasyada Somaliland ee gobolkaasi Maxamed Cabdulaahi Faarax. dablay hubaysan oo aan la garanay haybtooda ayaa la sheegay in ay ka dambeeyeen dilka mas-uulka oo si weyn looga garanayay magaalada Laascaanood. dilka marxuumka waxaa warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiri oo tacsi u diray qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka inuu sabir iyo iimaan alla ka siiyo. gudoomiyaha gobolka Sool ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan howlgallo ballaaran oo lagu qabanayo kooxihii ka dambeeyay dilka marxuumka. dilalka ka dhacaya magaalada Laascaanood ayaa weli iska sii socda xilli maamulka Somaliland uu dhowaan magaaladaasi kasoo masaafuriyay kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya kuwa oo lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin dilalka badan oo magaaladaasi ka dhacaya. qodobada kale ee saaxiibayaal daawadayaal idiin hanana waxaa kamid ah Koonfur Galbeed ayaa shaacisay qabashada doorashada kursigii lagu celiyay. guddiga hirgelinta doorashooyinka Koonfur Galbeed ee Siit ayaa shaaciyay jadwalka qabashada doorashada kursiga Hoob 54 si loo waafajiyo habraacyada doorashada guud ee dalka. kursigan ayaa kamid ahaa 3 kursi ee guddiga doorashada heer federaal dib u celiyay kuwa oo markii dambe la fasaxay 2 kamid ah. kursigan waxaa hore ugu guuleysatay xildhibaanad Sareedo waxaana la filayaa in islaayada ay ku soo baxdo mar kale, waxaana sababaha doorashadiisa hore loogu diiday ay ka mid ahaa kuwa farsamo sida xildhibaanad Sareedo oo keensatay gabar malxiisad oo ah da'an qaangaarin. waaga saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan, like-na nagu dhiirigelisaan, gambalaalka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka Alleh.